haadadka gaariga. markaad fadhiisato kursiga waxaa muhiim ah inaad saxato muraayadaha ama haadadka gaariga si aad u aragto waxa ka dambeeya ama ku dhowba. haadadka qaar waxay u baahan yihiin inaad gaariga furaha ku rogto, laga yaabay inay doonayaan inaad gaariga kiciso ama furaha aad ku rogto hal wareeg. waa inaad iska saxdaa haadka dhexe ee gaariga adigoo isticmaalaya gacanta bidix. waa inaad hubisaa in haadka dhexe uu kuu muujinayo waxa ka dambeeya ee muuqaal buuxa ah. fadlan iska hubi inaad gacantaada faraheeda aadan ku taaban muraayadda dhexdeeda si aysan kuu tusin muuqaal aanan jirin ama ay wax kaa qariso. iska sax haadadka bannaanka jira, gaar ahaan midka dhankaaga soo xiga, si aad u aragto gaariga kaa dambeeya iyo halka ay dadka marayaan sidani oo kale. fadlan xasuusnow, muraayadaha ama haadadka gaariga waa kuwo aad u yar, laakiin halka ay wax kaa tusayaan ay tahay mid aad u ballaaran oo waxqabadkooda iyo isticmaalkoodu waa muhiim. fadlan waa inaad taxadar badan siisaa haadka dhankaaga soo xiga. suunka gaariga. isticmaal suunka gaariga adiga oo hubsanaya inuusan suunka isku laabnayn oo uu fidsan yahay. iskana hubi in suunka uu xirmay adigoo hubsanaya dhawaqa ah inuu galay godkiisa. markaad suunka iska furaysana badhanka suunka riix, kadibna adigoo haya suunka halkiisa ku celi. marna ha samaynin inaad suunka sii dayso adigoo ku xisaabtamaya inuu isaga halkiisii ku laabanayo. waxay taasi sababi kartaa inay dhaawac gaarsiiso muraayadda daaqadda. shidaalka. intaadan dhaqaajin iska hubi inaad haysato shidaal ku filan safarkaaga. baabuurta qaar waxay ku tusinayaan inuu shidaal ku jiro isaga oo gaariga kacsanayn, laakiin inta badan waxay ku tusinayaan markaad gaariga kiciso. dhaqaajinta baabuurka. inaad gaariga dhaqaajiso waa mid aad u fudud, laakiin taasi waxay kuu fududaan kartaa haddii aad sharcigan raacdo. prepare oo ah diyaargarow, observe oo ah u fiirsasho, maneuver oo ah dhaqaajin. prepare diyaargaroobid. marka hore hoos u riix badeelka kalaajka ama farasiyoonka, kadibna geli marshada koowaad, kadibna gacantaada ku qabo bareega gacanta, kadibna lugtaada bidix ku riix badeelka gaaska ah oo sheelaraha adigoo u sheelaraynaya si degan. observe u fiirsasho. gaariga hadda wuxuu diyaar u yahay inuu dhaqaaqo. haddaba waa inaad gaariga dhaqaajisaa si taxadar leh adigoo hubinaya hareeraha gaariga. waxaad fiirinaysaa marka koowaad albaabka bidixaadkiisa, kadibna haadka dhexe iyo muraayadda hore, kadibna hubi haadka dhankaaga bidix soo xiga. ugu dambayntii garabkaaga dhankiisa fiiri si wixii ay kaa qariyeen albaabada tiirarkooda aad u aragto. waxaa jira wax la yidhaahdo blind spot, waana meelaha aysan ku tusin karin haadadka gaariga. waxaa mar waliba waajib kuga ah inaad qoortaada ama madaxaaga u jeediso meelahaasi adigoo ka taxadiraya khatarta kaa hor imaan karta, sida baaskiilka ama gaari si xowli ah ku socdo oo aad isaga hor imaataan isgoosyada. intaasi kadib isweydii laf ahaantaada ma tahay waddada mid ammaan ah oo lagu dhaqaajin karo gaariga. waxaase talo ah inaad gaariga signaal ama sanyaalo garayso, maxaa yeelay waddada waxaa sidaasi kaloo isticmaala dad doonaya inay waddada gooyaan. intaasi kadib signaal garee gaariga. maneuver dhaqaajin. markaad hubsato inay waddada ammaan tahay, bareegga gacanta halka hoose dhig, gacantaada bidixna ku celi isteerinka durbaba adiga oo farasiyoonaha ama kalaajka ugu kacaya si deggan oo macaan. waxaana markiiba si tartiib ah u sii sheelaraynaysaa gaariga. markii uu gaariga bilaabo inuu dhaqaaqo, durbaba iska hubi haadka dhexe ee gaariga iyo haadka dhankaaga soo xiga. mar kale aan ku xasuusiye, lugtaada bidix dhulkaaga dhig marka aad ka soo kacdo farasiyoonaha. isteerinka toosi adiga oo marshabiyeedka ama kaabka ka soo fogaanaya 1 mitir. iskana dami signaalka haddii aad horay signaal u daaratay. si deggan u kordhiso sheelaraha gaariga haddii aad u baahato adigoo eegaya hortaada si deggan. istaajinta gaariga. haddaba markaad gaariga istaajinayso waxaa jira shuruuc gaar ah, waxaana lagu kala magacaabaa haadadka, signal iyo dhaqaajin. iska hubi haadka dhexe ee gaariga iyo haadka bidixda xiga. ka fikir haddii aad u baahan tahay inaad signal bixiso iyo haddii kale. isteerinka u jaleeci dhanka aad doonayso inaad gaariga istaajiso,
adigoo la simaya marshibiyeedka ama kaabka. si degan bareega lugta ugu riix si gaariga xawligiisa uu yaraado, waana in aadan hal mar qabanin bareega. markaasi kadibna kalaajka ama farasiyoonaha riix ilaa iyo sagxadda. haddii aad aragto in gaariga uusan ku jirin giirka koowaad, waa inaad markaasi farasiyoonaha kalaajka hoos u riixdaa. haddaba nidaamkani waa midka ugu fiican. haddii aadan sidaasi yeelin, gaariga waa uu boodboodayaa, wuxuuna ku gelin karaa shil. lugahaaga ku hay bareega iyo farasiyoonaha haddii uu gaariga istaagay xitaa. kadibna marshada ka dhig foollo ama neutral oo gee halka dhexe. kansal garee haddii aad signal hore u bixisay. kadibna lugahaaga ka qaad badeelada. intaasi kadibna isdeji oo waqti qaado. inaad tababar ku qaadato si gaariga loo dhaqaajiyo haddana loo baakin gareeyo waxa ay qaadanaysaa 10 yar. waxaana qasab ah inaad isticmaasho oo kaliya giirka koowaad oo kaliya, adiga oo raacaya nidaamkan oo horay u soo sheegnay, welibana maamulaya gaariga.